bilownay sida intiini dhageysatay idaacadaha iyagii intii haleeshayba waxaa xabsi ku yaalay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia loo taxaabay madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Ethiopia isla markaasina waxaa jeelka in loo dhaadhiciyay ee timid markii xasaanada laga qaaday maalinkii ka horeysay markii xabsiga loo waday haddaba ma aha markii ugu horeysay oo madaxweynihii ugu horeeyay oo ka taliya deegaanka Soomaalida ee dawladda dhexe Ethiopia xabsi ay u qaado jaamac buulla jaamac ayaa warbixin gaar ah oo arrintaasi ku saabsan inuu diyaariyay madaxdii hoggaanka u soo qabatay deegaanka Soomaalida Ethiopia ee ka dhashay isbeddelkii dawladdii militariga ee Mingista Haile Mariam uu hogaaminayay iyo jamaadihii la dagaalamay ee horkacaysay tan qowmiyadda Tigreega ra'iisul wasaarena uu ku noqday Meles Zenawi intooda badan ma aysan mahadinin madaxtinimada wakhtiga oo ay dhammaystaan ha joogtee waxay badidood ku dambeeyeen in xabsi loo taxaabo 64% xabsiga ayay soo dhadhamiyeen cabdi maxamed cumar oo u dambeeyey waxa uu maray jidkii ay intii badnayd madaxweynayaashii deegaanka Soomaalida ay ku dambeeyeen waa kan ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed oo ka hadlayay xiritaankii la xiray cabdi maxamed cumar iyo sababtii ka dambeysay ለረጅም ጊዜ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተለያዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች በከፍተኛ ሁኔታ ብሌም ሲደረግ የቆየ ክልል እንደሆነ ይታወቃል። tobankii beri ee u dambeysay waxaan ku jirnay wadahadallo ku saabsan bariga Ethiopia wixii deegaanadaasi ka dhacay waxaad u malaynaysaa in uu ahaa filin aad u xun waxyaabo badan oo lala yaaba ayaa ka dhacay madaxweynayaashii horey deegaanka u soo maray xabsiga oo loo taxaabo iyo wakhtiga xukunkooda oo aysan dhammaysan ayaa badidood la isugu daray Axmed Roble waa aqoon-yahan ka soo jeeda deegaanka kana soo shaqeeyey muddo dheer Ethiopia iyo koonfurta Suudaan oo uu ka mid ahaa qubaradii gaarsiinaysay dowladnimada ee qaramada midoobay ka socday haddana waa xubin ka tirsan guddiga aqoon-yahanada deegaanka Soomaalida waxa uu ku nool yahay dalka Ingiriiska waa kan isaga oo ka warramayo madaxweynayaashii xilka laga qaaday iyo kuwii la xiray dirkaba madaxweynihii ugu horeeyay ee kililka Allah yarxamu maxaa Cabdullaahi Saacidi waxa kale oo xasan jire qalinle ugaas Cabdiraxmaan Maxamed Qani oo ahaa madaxweynihii saddexaad asagana waa la xiray xigeenkiisii oo ku simaha Axmed Makaahil Ciidahir Khadar Macalin Ali oo ah ninka lagu furay meesha loo yaqaan Jeelogaadeynka ama qaybtii ugu horeysay la geeyay ahaa waxaa kale oo la xidhay kii hadda ugu dambeeyay cabdi maxamed cumar xarig iyo shaqada oo la iska eriyaa waxa ay ka mid yihiin qodobada dowladnimada la socda hase ahaatee waa inay jiraan sharci loo maro oo uu eedeysanuhu madaxweyne iyo shacab midkuu doona ha ahaadee uu ku gam'i karo in loogu soo gabaday qareen cabdinaasir cabdulaahi waa sharciyahan ka howlgala dalka Maraykanka xaruna ku leh gobolka Minnesota cabdinaasir waxa uu horey uga soo shaqeeyay garsoorka deegaanka Soomaalida ilaa uu ka gaaray gudoomiyaha maxkamadda sare ee deegaanka isaga ayaa noo sharaxayo sharciga madaxweynayaasha deegaanka lala tiigsan jiray jaamac baad u mahadsan tahay waa runtii dalkan deegaanka Soomaalida wuxuu ka tirsan yahay dawladda Ethiopia oo ku salaysan nidaam federaali ah taasoo macnaheedu yahay waxaa jira dastuur federaal ah sidoo kale waxaa jira dastuur deegaanka ka jira oo deegaan ah baa jira intuu runtii marka la eego sharci ahaan waxaa weeye nidaam runtii ku salaysan aad oranayso aad advance uga ah bulshada iyo nidaamyadii ka jiray ma aragtay Ethiopia ka jiray hase ahaatee waxay kusoo koobmeen wax ku qoran buugaagta aan dhaafsiisnayn bay noqdeen markaad eegto xuquuqaha iyo awood qaybsiga iyo awoodaha madaxweynaha uu leeyahay waa mid aad u ballaaran su-aashu iyo ka qaadistoodu more political bay ahayd than legal inay tahay because mataqaana mararka inta badan ba board federal iyo deegaankuba tixgelinta runtii la siinaya sharciga wuu iska yaryahay qareen cabdinaasir ayaan weydiiyey inuu faahfaahiyo waxa uu la jeedo sharciga buugga ayuu ku ekaa mararka la doono dee waxay iska noqotay la jiifiyaana banaano dee markii la doonayo sharcigu baa lagu marinayaa mar walba haddii la doonayo kooranka baarlamaanka waa buuxa dadkii waa wada joogaan gacantaha la wada taagayaa nidaamka marka loo baahan yahay waa lagu marinayaa taa marka macnaheedu ma aha inay ay ahaayeen wax sharciyeysan qaabka lagaga qaadaya qaabka lagu keenayaba waxay ahaayeen mid ma aragtay faragelin badan ay ku jirtay Axmed Roble
ayaa isagu sharaxaya eedaha loo soo jeediyey madaxweynayaashii xabsiga loo taxaabay iyo kuwii xukunka laga qaaday dirkaba. sababaha lagu eedeeyey laba sababood ayay dawladdu sheegi jirtay, inkastoo qodob kale oo saddexaadna uu mataqaanaa ku hoos jiro. kan ugu horeeya waxaa weeyaan ku-tagfal awooddii maamulka, iyo kan labaad oo musuqa. qaarkood waxaa lagu eedeeyey in ay kartixumo darteed looga qaaday xukunka. cabdi maxamed cumar waxaa loogu daray laba qodob oo kale, labadii hore aan ahayn oo ka duwan. mid waa mida waxaa lagu eedeeyey inuu ku tuntay arrimaha xuquuqu insaanka ama tacadiyada xuquuqu insaanka, iyo inuu sameeyey isu dhac qowmiyaadka iyo diimaha. haddaba haddii la doonayay in wakhtiga iyo waayahaas cuslaaba laga faa'iidaysto wixii laga bartay, maxaa la gudboon in dheergaradka iyo ururada siyaasiga ah ee deegaanka ka jira ama hadda curanaya? su-aashaasi waxaan weydiiyey maxamed aadan dubad oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda deegaanka. maxamed waxaa aqoontiisa maadiga ah u dheer hidda aqoon uu guud ahaan soomaalida u leeyahay iyo gaar ahaan deegaanka soomaali galbeed. maxamed aadan dubad waxa uu ku sugan yahay edmonton, kanada oo deegaankiisa ah. waxay gacan uga geysan karaan in deegaanku uuna dib u dhac ka badan inta hadda ku dhacday oo already dib u dhac weyn uu ku jira aynan ku imanin, in ay ka shaqeeyaan mucaarad iyo muxaafidba inay isugu tagaan magaca soomaalinimo, oo waxa u sarreeya ay ka fikirayaan uu noqdo soomaalinimada, deegaanka soomaalida badbaadadiisa. taas ayay dhammaantood haddii ay aragtida caynkaa qaataan, waxyaabaha dhexdooda aana ay u imaan karaan marka xilligeeda la gaaro inay xalliyaan. taas ayaan u arkaa inay tahay sida saxda qof walba oo soomaaliya oo siyaasi ama shacaba ama aqoon-yahan ama ganacsada contribution positive oo uga geysan karo, ama fikrad wanaagsan oo dadka wax u taraysa, oo shacabka dulmana muddada dheer ee rafaadsan wax u taraysa, inay unityga soomaalinimo ku adkaystaan, arrimahooda gaarka ana ay dib u dhigtaan, ayaan u malaynayaa inay ku gaari karaan. haddii ay dawadu tahay midnimo, waa maxay tallaabooyinka la qaadi karo si wadajir loogu adeego bulshada? waa kan isla maxamed aadan dubad oo arrintaasi ka faalloonayo. tallaabooyinka la qaadi karo sida aniga ay iila muuqata waxa weeye waxa hadda dadka u jiraayay in la taageero, lana soo dhaweeyo. matal baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo madaxweynaha cusub iyo haykalka dawliga ee deegaanka maanta maamula dadka soomaalidu ay leeyihiin, in ururada siyaasadda guud ee Ethiopia mucaaradka ku ah iyo kuwa isbedel doonka ahaaba ay soo dhaweeyaan, oon laga hordegin, aan la jalaafaynin, aan caqabado lagu noqonin, loo daayo in ay gacantii maamulka soomaalida ee deegaanka ay dhalinyaradaas maamulka ay si fiican gacanta ugu dhigaan, iyagoo talo wanaagsan la siinayo. marka tallaabada ugu wanaagsan hadda in la qaado ay tahay waxa weeye si unityga loo xoojiyo, in aan laga hordegin ama aan caqabada lagu noqonin wixii wanaaga ee dhalinyarada maamulka maanta gacanta ku haysa ay ummadaasi usoo wado, laguna xisaabtamo sida ay dadka uga dhaqmaan xilligeeda. qareen cabdinaasir ayaan weydiiyey wakhtiga iyo waayihii adkaa ee lasoo maray sidee looga faa'iidaysan karaa si aan dib loogu noqon jidkii hore loogu jabay? waa su-aal runtii aada muhiim u ah. waxaan odhan karaa waa cusub baa ka bariyay runta Ethiopia markii la doortay Abiy Ahmed. deegaankan wuu ka soo daahay, balse hadda aad moodaa inuu gaaray oo hadda la doortay Mustafa Cumar. siyaabaha lagaga faa'iidaysan karo runtii markii deegaanku uu yahay 20 sano ee lasoo dhaafay, runtii markaan eegno ilaa iyo mataqaanaa 91kiiba dhibaatooyin badan deegaanka Soomaalida ha haysto, maadaama deegaanka ka hore mataqaanaa taariikh ahaan mar walba masiibo ka duwan ee haysatay deegaanada kale oo meel cirif uu ku jiray. hadda markii ugu horeysay dad badan oo runtii leaders ah, la odhan karo qof leader oo deegaankan maqaamkiisa iyo qadiyadan fahamsan, una horseedi kara wanaag horay oo si fiican uma soo marin. Mustafa waa qof runtii aqoon leh, aan ku tuunsanahay mataqaanaa karti iyo deganaan iyo maaragtay competence aan ku ognahay maadaama uu yahay. not only inaan aqoonta markaan leeyahayn hadda ka horna waan nidhi ma eegayna keliya shahaado iyo aqoonteeda keliya ma, waa qof daraasaad ku sameynaya deegaanka la soo socday, wax badan ka qoray, og, fahamsan. qofkaasoo kale markuu joogo waxaa imanaysa inay fursadeena soo martay 91kii oo kale inaysan dhici doonin, oo aan ku kalsoona xilligan xaadirka ah inuu wuxuu watay ajendo qorshe maaragtay uu hufan oo og yahay meesha aan taagannahay.
taariikhdii aan soo maray iyo meesha aan u soconnaba qof fahamsana maadaama uu yahay qofkaasoo kale oona aanan ka baqaynin runtii dad aqoon leh damiir leh diin leh inay la shaqeeyaanna diyaaru u yahay oo haddaba already aan maqalo dadka maaragtay ay xushaan ay doonayaan inay xushaan ay yihiin dad mataqaana ehel u ah aqoon iyo wanaag u ah waxay fursad siinaysaa deegaanka inuu maaragtay isbedel u horseedo. ammaan iyo dhaliil hordhacaba waa loo hayaa madaxweynaha cusub mustafa maxamed cumar balse wakhtiga ayaa dadka bari doona dhanka uu u liico.